dulqaadkii waa naga dhammaaday waa tegaynaa mugga bannaanbaxa dambe waxaan isugu tegaynaa golweeye buulo waxaan kala helnaan leennahay waxaan ogeysiihaa oo beriga aan inta uga ogeysiiyaan u sheega rabaa dowladda federaalka khaasatan ra'iisul wasaaraha hal kelmadood dhacdaa shicibkan qanciya mudane ra'iisul wasaare dadka aad doorashada ka rabto amba aad codka ka rabtiin hilbaha firinteerkaas ku jiro waay waxaa loo keenay inay nabadgelyada ilaaliyaan waxay u joogaan inay shacabka xasuuqaan mootooyinkii iyo dadkii maatada ay waa dardarayaan asay ka gudbayaan maydkii waa gubayaan waa dhibaato marka ka bacdi annagu dad noolaan nahay ahab laguma itaal yareeyaa la yidhi marka ka bacdi waxaan u taagannahay inaan dagaalanno war kuma ekin dadku waa inay xoqooda iyo xurriyaddooda u dagaalamaan haddii laga gardaran yahana ay u dhintaan si ay u gaaraan nabadgelyo iyo sharci shaqaynaaya haddii inta dawlad ajnabiyuhu timaado waddanka dhexdiisa dadka ku laynayso oo dawladdii awood hadda aanay u lahayn oo maaragtay mandaydkoodii ay ku tumanayaan wax la qaadan kara maaha waxaa la rabaa shacabku hadday ay soo baxaan dawladdu garabay helaysaa maanta waxaan taagannahay waddada loo maro meesha ay ka galaan xalane birina waxaan mataqaannaa istaagi doonnaa meel walbay joogaan waxaan u baahannahay arrinkaas in wax laga qabto waa dawladda federaalka nimanka hadda amasom 6 jeeraan la kulannay tira ka 5 jeer ilaa haddana mataqaan waxay rabaan inay af soomaali nagu qanciyaan soomaalidii hore ma nihin waxaan u baahannahay inaanan duug iyo aanan ku qancaynin oon xaqa dadka loo baahan yahay caddayn loo baahan yahay